Assalaamu calaykum. Wax ka baro taariikhda waddanka Malaysia. Malaysia waa waddan ku yaala koonfurta bari ee qaaradda Aasiya. Waddankan wuxuu xuduud la leeyahay wadamada Philippines, Thailand, Brunei, Singapore iyo Indonesia. Caasimadda waddanka Malaysia waa Kuala Lumpur. Waddanka Malaysia waxaa degan dad gaaraya 28,250,000 oo qof, waxaana uu dhisan yahay dhinaca federaalka Malaysia. waxaana degan ajaanib kala duwan, waxayna u badan yihiin Maleeshiyaanka ama Malaya 50%. Inta kalena waa ajaanib iskugu jirta Hindi iyo Shiinees iyo kuwo kale oo badan. Waddanka Malaysia markiisa wuxuu lahaan jiray magacyo badan. Mar waxaa la dhihi jiray waddanka Jasiiradda Malaysia, haddana waxaa loo bedelay Malaya. 1946 marka uu waddanku midoobay, waxaa loo bixiyay Midowga Malayaasha, kadibna waxaa loo bedelay Federaalka Malaya. 1957 markay xornimada qaateen, waxaa la midoobay gobollo ka mid ah waddanka Singapore, isla markaasna waxaa loo bixiyay Malaysia. Singapore waxay Malaysia ka go'day waqti 2 sano ka yar, isla markaasna waddanka Malaysia wuxuu ku dadaalay dhaqaalihiisa. Waddanka Malaysia waxaa 50 sano ugu horeysay ka mid noqotay wadamada ugu dhaqaalaha fiican.